Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada darsigeenan maanta oo ku saabsiisan qeybta security-ga iyo amniga. Marka waxaynu kusoo qaadan doonaa sida wireless-ka sida looga bedelo password-ka iyo sida looga bedelo magaca, isla markaana sida website-ada looga bloggo oo loogu diido in router-ka website-ada qaar laga galo. Isla markaana waxaynu kala soo qaadan doonaa sida loo qariyo wireless-ka iyo sida loo muujiyo iyo sida wireless-ka isagoo muuqda looga dhigo mid qofku markuu israa ku connect garow ama connect ku dhufto ku yiraahdo failed uu diiday inuu ku connect garoobo. Intaasba waxaynu kusoo qaadan doonaa hal darsi oo gaaban insha allahu tacaala. Marka koowaad waxaad tegaysaa browser-kaaga sida Chrome oo kale ayaad tegaysaa, waxaad furaysaa tab cusub, waxaad qoraysaa 192.168.1.1 intaas ayaad qoraysaa, kadib enter ayaad siin doontaa. waxaa kusoo bixi doona bogoskan yar. halkan username-ka waxaad aragtaa waa admin, password-kana waxaad ku gelaysaa admin, kadibna login baad oranaysaa. markaad log garayso halkan waa wireless aynu tegaynaa si toos ah. waxaa inoo hoos yaala laba option oo mid ku qoran tahay wireless basic iyo wireless security. wireless basic ayaynu qabanaa, waxaynu tegaynaa halkan waxaad ku arki doontaa magacii kugu qornaa wireless-kaaga sida kaygan oo kale M Cabdillaahi ay ku qoran tahay M Cabdillaahi. balse waad masixi kartaa, waxaad ku qoraysaa magaca doonto, magacaas oo kale ayaad qoraysaa, kadibna apply ayaad siinaysaa. waa si aad magac uga bedesho, apply ayaad siinaysaa. waxaa jirta aynu soo tilmaamnay wireless-ka waad qarin kartaa oo isagoo wireless-ku shidan yahay ayaad haddana qarin kartaa oo aanay dadku arki karinba gebi ahaanba. taas micnaheeduna wax kala maaha ee bartan ay ku qoran tahay visible ee uu ku dhibicda yar ku saaran tahay radio button-kan yar ayaad ka dooranaysaa invisible. visible micnaheedu waxa weeyaan hala dareemo oo hala arko wireless-ka, invisible-na waa yaan la arkin. marka invisible baad ku dhufanaysaa waanaad apply garaynaysaa si aad dadka ugu diido inay arkaan wireless-kaaga. markaad doonaysa inay arkaanna visible ayaad ku celinaysaa. waxaynu kaloo soo tilmaamnay in wireless-ka aynu niri isagoo yaala wireless-ka oo u muuqda dadka ayaad haddana u diidi kartaa dadku inay ku connect garoobaan. oo markuu qofku siraa connect ku dhufo ayuu wireless-ku ka oranayaa connected failed, connectigii uu failed garoobay ama laguma ogola in aad ku xidhiidho wireless-kan. taa micnaheeduna wax kale maaha ee bartan ku qorantay enable wireless ay ku qorantahay ayaad saxa ka qaadaysaa, kadibna simply waad apply garaynaysaa. haddii aad rabto dadka inaad u ogolaato inay ku xidhiidhaanna mar labaad saxa ayaad saaraysaa, kadibna waad apply garaynaysaa. halkan noqdo aan rabo inaan ku ogeysiiyo waxa weeyaan markaad optionadan wax ka bedesho eed apply garayso waxaad ogaataa router-ka laba mid baad samayn kartaa. inaad soo restart garayso adoo baktiinaya router-kaaga, kadibna mar labaad soo shidaya si meeshii aad invisible-ka uga dhigtay ama aad saxa uga qaaday ay sideedii hore iskugu bedesho. kaasi waa mid. sidoo kale waxaa jirta waxaad samayn karaysaa hal mid oo kale oo ah inaad apply garayso kadibna aad sugto muddo ama aad wireless-ka intaad yaro off garayso iska xidho, kadib aad dib uga soo gasho computer-kaaga si changes-kii aad bedeshay loo save garayo. waxaynu soo tilmaamaynay in password-ka sidoo kale laga bedelo wireless-ka. waxaad tegaysaa wireless, iminka basic bayn joognay, wireless security baad tegaysaa, kadib waxaa kuu soo bixi doona page-ka noocan ah. halkan waxaa ku yaala password-kaagii, waad masaxaysaa, isla markaasna waxaad ku qori doontaa password-kaaga cusub waanaad apply garayn doontaa. waxaynu kaloo soo tilmaamnay in router-kaaga aad ka blog garayn karto website-ada qaar, ood u diidi karto website-ada in qaar laga isticmaalo, isla markaana aad u cayimi karto sida Facebook oo kale aad oran karto maalinka isniinta 2 saacadood oo kaliya ha la isticmaalo amaba weekend oo dhan yaan la isticmaalin Facebook-ga. taa micnaheeduna waxaad tegaysaa iminka set up bayn joognaa, waxaad tegaysaa advanced baad tegaysaa. markaad advanced tagto waxaad ka dooranaysaa cafwan, kadib parental control baad ka dooranaysaa. waxaan nira advanced cafwan iga raali ahaada, parental control ayaad tegaysaa, kadibna halkan blog website ayaad ku qoran. halkan ayaa kusoo bixi doona page-kan add ayaad oranaysaa, kadib waxaad qoraysaa simply website-ka aad rabto in aad xanibto oo aan laga isticmaalin router-kan sida www.facebook.com oo kale.
haddii aad rabto waqtiyo cayiman inaan la isticmaalin waxaad tegaysaa ama maalmo cayiman manual shudal ayaad ku dhufanaysaa, kadibna halkan ayaad saxa ka saaraysaa maalmaha aad rabto in la isticmaalo iyo saacadaha aad rabto inaan la isticmaalin. macnaha waxaan ujeedaa maalmaha aad saxa saartay lama isticmaalayo, oo isniinta iyo salaasada lama isticmaalayo, siib ahaan saacadaha aad halkan ku qortay lama isticmaalayo, sida 3 oo buura ah ilaa iyo 4 oo buura ah lama isticmaalayo saacada. waad apply garaynaysaa. haddii aad rabto wiiga oo dhan inaan la isticmaalin waxaad saaraysaa halkaas saxa all week ayaad saaraysaa, kadib wiiga oo dhan baa saxaya. haddii aad rabto wiiga saacadihiisa oo dhan inaan la isticmaalina all hours ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waad apply garaynaysaa. sidii aan kuu sheegayna waxaad markaad apply garayso routerkaaga bakti dib u soo shid si changeskan aad samaysay loo save gareeyo. waad ku dari kartaa hadhow markaad apply garayso haddana mar labaad aad kusoo dhufo website badan ayaad ku dari kartaa. haddii aad rabto inaad ka noqotana simply waxaad ku dhufataa uun close cancel ayaad ku dhufanaysaa. imika ma rabo inaan wax ku diro, aad baad kusoo dhufan doontaa, ama waad edit garayn doontaa ama waad delete garayn doontaa. qodobka ugu dambeeya ee rabo inaad ila wadaago oon idinku daro waxa weeyaan in aad daawan karto wirelesskaaga. haddii aad ka shakido inay dad kale kula isticmaalayaan waad ogaan kartaa wirelesska cidda isticmaalaysa dhammaantii ama routerkan gebigiisaba adoo ku dhufanaya barta ay ku qoran tahay status baad ku dhufanaysaa. halkan waxaad ku dhufanaysaa DHCP clients oo itus ah liiska clientska isticmaalaya. imika tusaale ahaan halkan waxaanu ku isticmaalinaa Cabdishakuur Pizzi oo kaygayga ah, Cabdishakuur Pizzi iyo Ismaaciil ayaa isticmaalaya. waa kaygayga iyo ka Ismaaciil ayaa isticmaalaya. marka haddii aad ka shakido dad kale inay kula isticmaalayaan meelahan ayaad ka ogaanaysaa. imika 3 computer ayaa ku xiriirsan, halkan ayaad ka ogaanaysaa. markastana waad refresh garaynaysaa si aad u ogaato. darsigeena security-ga maanta waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya inaan idiin sheego. markaad waa in qaybta routerkaaga soo gashay badanaaba ciyaalku ma oga waxna kama yaqaanaan. marka si aanad san uga tagin pagekan log out ayaad ku dhufanaysaa, kadibna log out ayaad mar kale oranaysaa. waxaad arkaysaa passwordkii in laga masaxay, kadibna waa soo xidhaysaa. ugu dambeyn waxaan idin xasuusinayaa inaad website-kan la soo xidhiidho isla markaana aad subscribe garayso ood kanaalka aan ku leenahay YouTube-ka, Facebook-eenana aad like garayso isla markaana u share garayso asxaabtaada. tan iyo kulan dambe intaan ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi